الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. فهم oo soo diyaariyay waxa weyn xafladan soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Camuud waxaana ku soo dhaweynayaa Khalid Maxamed oo wax weeyaan inoogu hal doona afkooda ku soo dhaw Khalid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بورمان كل شيء بورمان كبر باري تركي بان كنورا هذا برنامج كان وحوجا إنك صون وقت بدن هين لكن وحن لقى مارمان نقضي إنه نسوي ويو معلن كي at the same time and scholarship كمر ودعاني مركب معنا جوني أنا سمعين إيسا محمد موسى وحكم ده أستاذ بيري أركم فديا كل يوم سكواركني أنكارا وانا تصير عني رنتي محمد موسى جبريل مدل حسنا وتركي تشوقي مددي وتشوقي حاجة أنا ما حريري شني وحي ديلا وحي ما تغني ديري قلنا runtii macna gooni ii sameynaysa murihii turkiga ka soo baxay in jaamacadii Camuud ay maamul ka noqdaan farxad weyn way tahay adaatay markii scholarship-ka aan runtii dad badan baan ahayn marka aniga iyo ustaadku waxaan ka mid ahayn intii adkaysiga badan la timiday istilna jaamacadii saddexaad baan hadda dhameynaya meesha san deganahay marka micnaha ugu weyn ee programka uu qoonay wuxuu ahaa soo dhaweynta inaan u muujino waan soo dhaweynaa insha Allah ilaahay isagana ha u fududeeyo xilka culus uu qabtay كخالد هان كفام جروب هان إن شاء الله وحن رجينا إن جامعة واحد بدنا قبضنا دونه وحرة بدنا عن لسوق قبضناي 2016 كي مركي جامعة عمود يجامعة كله ودن قبل الديري إن لقاء مصر حاجة أنتوا على سبعة كم ده هين ودة شيء سفارة ده وزارة واحد برشة رتي واحد بدنا قبضتي إيمي كان مدام دكتور محمد موسى جبريل حل كله وريجي intii in ka badan baan anaguna aan keeni doonaa insha Allah hadii aan leedmo inta sanadkii ku soo gabagabeeyay waxa laga raali ahaado macallimiinteeda meesha fadhiya kulli hadba markaad arday la hadlayso markaad waalid la hadlayso markaad macallimiin la hadlayso ay kala duwan yihiin marka wax badan sii oran maaysan u dhex fadhiisan meesha insha Allah marka aad baad maasantiin waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo ila socda ganacsado weyn oo runtii ganacsatada inta badan Turkida isbitaalada bareefadka iyo isbitaalada dawladda inta badan maalgeliya qaybta imagine-ka hargeysa program weyn aan ka wadnaa runtii aan keenno 1.5 Tesla MR iyo CT scan iyo imagine center dhismaha hadda socda insha Allah October baan rajeynaa inaan furno at the same time boorama xafiiskan jaamacadda agteeda waxaan ka wadnaa isbitaal weyn oo dhammaan wixii soo dhameystiray insha Allah kaanu kulli mar dambe sameeyman doonaa jaamacadda iyo dhammaan inta ku shaqada leh marka waxaan ku soo dhaweyn doonaa Mr. Junayd insha Allah abi hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle Somaliland'de olmaktan bir gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Hore aad baan u faraxsanahay mujtamaca Soomaaliya aan dhaximaado oo salaantana waa in ku salaamaya salaanta islaamka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somaliland'e geldiğimde bu kadar hoş, bu kadar güzel karşılanacağımı hiç düşünmüyordum. Bu ikinci gelişim. Çok ama çok mutlu oldum. Güler yüzünüz, İnsancı tavrınız, kucaklayışınız beni ziyadesiyle mutlu etti. Teşekkür ederim. ومركي لبادن imaado wadanka imaado manaan filanaynin sidaas oo dhan la isoo dhaweyn doono sida wajiga faraxsan la igu soo dhaweeyay iyo waxba aan la dhaxan karan aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahadcelinayaa
Türkiye'de yaşayan bir iş insanıyım. Çalışma alanlarım genellikle sağlık alanında çalışıyorum. Türkiye'de 8 hastanede tomografi, MR, CT scan, ultrason, Doppler hizmeti vermekteyim. Turkiga nin shaqaale ah oo ganacsade ah oo ku nool ayaan ahay waxaanan ka shaqeeyaa 8 isbitaal oo qaybta CT scanka MRI-ga iyo ultrasonka dhakhtarada 8 isbitaal ayaan muxuu balki gacanta ku hayaa. Sevgili arkadaşım Halit Bey'in ısrarlarıyla bu ülkeye geldim. Gelmeden önce tabii ki ön yargılarım vardı. Ülkeyi gelip gördükten sonra bütün ön yargılarım kırıldı. Geldiğim için de cidden mutlu oldum. Geldikten sonra ikinci ziyareti yapmak istedim ve ülkemize yatırım yapma kararı aldım. Markii hore imaashinkayga wax aad igu sii adkeeyay amba igu sii tabaabusheeyey Khalid oo ag fadhiyo Turkiga aan ku saaxiib nahay kamanaan filanayna inaan sidaas oo dhan aan muxuu baalkii aan u jeclaan doono waxaanan go'aan ku gaadhay markii koobaad inaan mar labaad aan kusoo noqdo markii labaadna go'aan saddexaad waxaan gaadhay inaan investment aan maalgashi aan waddankan ka sameeyo. İlk yatırımımızı Hergesa'da MR merkezi açmakla yapmış olacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir yatırımımız var. Ondan sonraki en büyük yatırımımız Hergesa'ya, daha doğrusu Somaliland'e kanser arama tarama merkezi kurmak. Investmentkii ugu horreysay hadda waxaan ka wadnaa Hargeysa ayaan ka wadnaa oo mishiinka loo yaqaano MRI-ga ayaan meel u furaynaa. Waxaana ku baxaya lacag dhan 1.5 milyan dollars baa ku baxaya. Intaa wixii ka dambeeya investmentkayga labaad waxa uu noqon doonaa in aanu furno meel lagu daweeyo kansarka. Buraya geliş amaçlarımdan biri sadece para kazanmak değil. Buna bütün samimiyetimle söylüyorum. İnsanlığa olan borcumu da ödemek istiyorum. Buraya hizmet ederekten çoluk çocuğumun, benim ve ülkemin sadakasını da vermek istiyorum. Keliya taa halkan umaan iman inaan lacag aan ka shaqaysto amba aan lacag ka faa'iido ama profit aan iga soo galo waddanka laakiin waxa aan ku sii muxuu baalkii aanan u sii dhaqmayaa sida dadka waddanka joogan sadaqada xataa igu waajibtay inaan bixiyo. Şehrinize bir katkım olursa seve seve yapacağımı söylüyorum. Magaaladana haddii ay muxuu wax igu waajibaan amba ay laygu waajibiyo waxaanan si farxad leh aan u qaban doonaa waxa igu waajibay wixii igu soo hagaagana aan u bixin doonaa. Bizi hayvanlardan ayıran en büyük özelliğimiz insanlara yardım etme duygumuz. O duyguyla ben Somaliland'de bulunmaktayım şu anda. Özellikle kanser hastalarına karşı çok hassasiyetim var. İnşallah ileride bölgenin Cibuti, Etiyopya, Somali, Kenya bu yarıçaptaki en büyük kanser arama tarama merkezini kurmak istiyorum. Waxa sababta amba waxa keliya taan kaga duwanahay xayawaanka waxa weeye inaynu aynu iscaawino dhexdeedana aynu caawimaad muxuu baalkan sameeyno waxa ugu badan ee aniguna aan muxuu aadka aan muxuu baalkan uga naxaa waa xanuunka la yiraahdo kansarka waxaan doonayaa inaan muxuu aan ka qabto wax weyn amba waxtar weyn aan ka qabto xanuunka. Ben Medirex Sağlık olarak ismimin burada tekrardan devam etmesini, Hergesa'da belki de burada Medirex Sağlık adı altında sağlık yatırımları yapmayı kesinlikle istiyorum, arzuluyorum. Bu da benim bir insani borcum olarak düşünüyorum. Waxaan doonayaa inaan investmentkayga maalgashigayga inuu ku sii socdo meeshu doonaba Hargeysa ha ahaado amaba ha ahaato Boorama. Keliya un ma aha inuu profit aan amba waxay faa'iido aan ugu jirta laakiin aaminada aaminsanahay inaan waddankan wax geliyo amba waxtar u yeelo ay meega tahay. Özbekistan hükümetinde böyle bir proje ürettik.
Orada karaciğer nakli yapılmadığı için, karaciğer nakli için İsrail, Hindistan ve Türkiye'ye gidiyordu hastalar ve Güney Kore'ye. Liv Hospital'la birlikte Türkiye'nin en büyük hastane zinciri, Türkiye'de ilk eğitimlerini vermek üzere 20 tane karaciğer hastası, karaciğer nakil hastasıyla anlaştık. 6'sını Türkiye'de yapıp 14'ünü Özbekistan'da yapıp Özbekistan doktorlarını da eğitim verip yarın o bir gün hiçbir hasta Özbekistan'dan gidip başka ülkeye nakil olmayacak. Özbekistan hükümetine, Özbekistan Sağlık Bakanlığı'na, Özbekistan halkına da ciddi katkılarda bulunduk. Özbekistan halkının parası kendi ülkelerinde kalıyor. Büyük masraflar yapıp başka ülkelere gidip sefalet yaşamaktansa kendi ülkelerinde artık karaciğer nakli yapacaklar. Kısmet olursa ileride buna benzer projeleri Somaliland'de yapmayı düşünüyorum. Uzbekistan waddanka la yiraahdo waxaan ka fulinay project noocan hadda aan doonayna inaan ka fulino Hargeysa markii hore dadka Uzbekistan ku nool waxay u doonan jireen xanuunka ugu badan ee ku dhaca waa xanuunka beerka ku dhaca waxay u doonan jireen South Korea ay u doonan jireen iyo wadamada muxuu habaalka Asia aad uga fogfog markii aan project-aan ka fulinay waxay dadkoodii ay muxuu ahaa bilaabay inay muxuu ahaa ay wadankoodii ay muxuu ahaa ay iska daweeyaan lacagtii wadanka kaga bixi lahayd wadanka dibadiisa wadankii waa ku noqdo waxaan sameynay muxuu ahaa 20 doctor ayaan u muxuu ahaa baalka aan wax u barnay dandabeetis waxayna ka maarmeen inay xataa dhakhtar ay dibadda ay ka keensadaan ay dhexdooda ay isku filnaashi gaaraan. Bu kadar yoğun programımız arasında özellikle buraya gelmemizin sebebi Doktor Muhammed Musa Bey'i tebrik etmek, ona ne katkı sağlayabileceğimizi söylemek, elimizden geleni yapmak için, özellikle tebrik etmek için yeni rektörlük döneminde ondan dolayı geldik. Waxa ugu muhiimsan hadda aan halkan u mid waxa weeye inaanu hambalyeeno amba aanu hambalyo aanu soo gaarsiino rektorka cusub Dr. Maxamed aanuna tusno waxaanu doonaynaa inaanu qabanno wadanka ahaan iyo ka magaalo ahaanba waxaanu doonaynaa amba projectkaygu wuxuu yahay si aanu tusno laakiin si hambalyada waxaan ugu muhiimadda ugu weyn aanu u nimid waxa weeye in saan ugu hambalyeeno Dr. Maxamed Muuse mas'uuliyadda uu qaadayna aanu muxuu ahaa baalka Ilaahay ugu weydiino inuu Ilaahay u fududeeyo. Doktor Muhammed Bey Türkiye'de Bursa'da mezun oldu. Doktorasını da orada yaptı. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Ve böylece Türkiye artı Somaliland arasında gönül köprüsünün bu şekilde kurulacağına inanan insanlarız. Biz de bunu bildiğimiz için Doktor Muhammed Bey'e gelip elimizden ne geliyorsa desteklerimizi sunmaya geldik. Dr. Maxamed waxa uu ka mid ahaa ardayda ka soo qalinjibisay magaalada loo yaqaano Bursa jaamacad ku taala waxaanan aad ugu faraxsanahay aba ka Turkiye ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu aragno wadankii ka soo qalinjibiyay haddana wadankiisii wax ku celiyay waxaanan ognahay amba dadka waxaanu ka mid nahay dadka aaminsan in muxuu ahaa dadka Soomaalida iyo dadka Turkiduba bridge ay jeexi karaan bridge-kaasoo labada wadanba qabsigoodu inuu muxuu ahaa baalkii heer gaaraya dadka aaminsan ayaan ka mid nahay. Ülkeniz için yapacağım şeyler olursa lütfen söylemekten hiç çekinmeyiniz. Katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarım. Beni sabır ve anlayışla dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunarım. ii soo jeedinaysaan waalo wixii aan wax ka qaban karno waxaan aad ugu faraxsanaan lahaa amba aan u doon lahaa inaad ii soo jeedisaan sidaad ii dhegaysateena aad baan ugu faraxsanahay. Hayırlı uğurlu olsun. ayna waxa weyn noo soo jeediyeen inay gobolka Awdalla wixii u baahan yahay ka qaban doonaan aad baan ugu faraxsanahay hadda waxaan jecelahay inaan waxa weyn soo dhaweeyo injineer Cabdikariim oo kelmadiisa siiyo. Only isaga keliya so ben sadece sen yani seninle konuşuyorum ondan hiç anlamıyorum benim adım Abdikrim Türk Bursluları mezunuyum Temmuz 2016 aynı günlerde hatırlıyorum yani Fethullahçı olan bir başarısız darbe girişimi günlerde hatırlıyorum hatta Antep'teydim o zaman Türk halkları çözürler.
yani çok cesurlar. 2016 Ağustos ayında tekrar buraya geri geldim. O gün bugüne kadar çalışıyorum, buradayım. Son 4 yıldan beri ben mühendislik fakültesi dekanıyım. Çalışıyorum o yüzden. Bu benim için. Sizin için Amud Üniversitesi'ye ve Bornova şehrine hoş geldiniz demek istiyorum. Amud yani Halil ya da benim arkadaşım onlar bir şeyler senin için söyledi belki. Dün ben Hargeysa'daydım. Yani Halil'i gördüm. Aynı yerde, aynı otelde. Belki seninle. O muydu? Aha, okey. Rektörümüz bana çağırdı. O dedi Vam grubu. Bir arkadaşları bizim isim davet yani aldılar. O yüzden geri dönmeye bir karar aldım. 2 saat önce geldim. Ben buradayım. Sağ ol. Amud Üniversitesi yani sen ya da ben yani ilk gün bulunur. So tekrar hoş geldiniz diyorum. Yani Assalamu alaikum. waxaan jeclahay iminkana inaan ku soo dhoweeyo aabbaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guleed. على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي بان soo dhaweynaya martida inala joogta maanta sharikada waa hey يا وترجمها waxaan idinku soo dhaweynaynaa iyada oo aad ogtahay taariikhda geeska Afrika dawladihii taariikhda soo maray dawladda ugu muhiimsanayd berigii hore waxay dawladdii islaamka ee Turkiga Osmaaniyaddii dawladda Turkiga Ottoman Empire oo runtii ahayd caalamka islaamka oo dhan marwada xukumaysay nasiib darro waa berigii gumaysigu soo xoogaystay dawladdii waa tii ay dhamaatay niman muslimiin oo carabana ku jiray burburkeegii ugu sababaha ugu waaweyn ka mid ahaayoo gaalada markaa gacan siinay laakiin awooyaashay waxay xasuusan yihiin taariikhdii geeska Afrika marka aad wax ka qabateen oo adari harar ilaa berbera iyo zayla inta wixii aad ka qabateen beriga waan ogeyn maanta caalamka markaan eegnana kaalinta dawladda Turkigu ay kaga jirto caalamka islaamka hoggaankeeda maanta iyada haysa runtii hoggaaminteeda ma aha kuwan lacagaha badan haysta ee batroolka ma aha dadweynaha shucuubta caalamka islaamka maanta waxay hoggaan u ah sida dhabta dawladda Turkiga u ah iyo madaxweynihiin waan ognahay inuu cadow badan ay yeelanayaan markaad islaamka urur istiraado nimanka shisheeyihii ma jecla inay islaamka la ururiyo marka cadow badan baad kasbanaysaan laakiin waxaad ogaataan inay spiritually dadweynihii islaamku maanta inay idinka idin la socdaan aan cid kale la soconin anu wadankiina waan tagay 4 jeer baan tagay anigoo rectorka jaamacaddan aan hadda Dr. Maxamed ku wareejiyay wadankiina quruxda badan leh waan soo aragnay tartanka aad kula jirtaan horumarinta wadankiisa aad Yurub kula jirtaan waxa dhici karta 50 sano ka hor inaanu Turkigu kaalin weyn ku jirin maantana waxay kaalmaha ugu horeeya wadankiinu kaga jira because hoggaamin fiican baa hesheen waana idinku hambalyeynaa magaalada Istanbul shanta magaalo ugu waaweyn Yurub laba Turki ah ku yaala Turki laba ku yaala Istanbul iyo Ankara ku yaala waa shanta dawladeed ee shanta magaalo Yurub ugu waaweyn hagi dhinac walba aad ku tartamaysaan maanta waxaad soo jiidateen Afrika Asia iyo kuwa dee maskaxda furan ee Yurubiyiinka ana maanta Turki sida ay u qadariyaan iyo waxay ka iibsanayaan iyo horumarka dhinaca militariga iyo dhinaca dhaqaalaha iyo warshadaha intaba waana idinku hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa adiga iyo saaxiibada inta aad Soomaaliland markaad timaadaan ama xagga aad joogtaan calaa iyo xaal hawshiinu halkan tahay jaamacadda Camuudna inaad gacan naga siisaan horumarka waanu horumarnaa wadiga arkaya jaamacadda ayar weey hoggaankeeguna waa daayar yahay wax iraalaba dhowr baan ku joognaa
laakiin waa jaamacad da'yar oo soo koraysa haddana magaceegu maanta soomaalida dhulka af soomaaliga lagaga hadlay iyada ugu sumcad fiican waxaan jecelahay inaad gacan naga siisaan walaalihiin baanu nahay waan idinku hambalyaynaynaa iskaashiga cusubna waan soo dhowaynaynaa somaliland bilaahi tawfiiq Kıymetli Cüneyt Geser, değerli kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Borama'da özellikle de Amud Üniversitesi'nde ayrılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizi karşılıksız seven sevgi besleyen ve kardeşlerimize geldiniz. Ben de yeni seçilen rektör olarak kendim siz yetiştirdiğiniz biriyim. Doktorumu da Bursa'daki Uludağ Üniversitesi'nde bitirdim. Türkiye'de okurken değerli o kıymetli Türkiye halk ve o zamanki Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bize çok güzel kesrayıp eğitimimizin sonuna kadar destekleyip ilgilinde ve onlara minnettarız. Bu yüzden size gönülbaga kardeş olduğumuz için mutluyuz ve birlikte çok şey başarabileceğimize inanıyorum. Ayrıca bizi bu olay yemeği ile onurlandırdığınız için bugün yine tarihi bir gün ve kardeşlerinize olan sevginizi gösteriyor ve biz de size seviyoruz. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Janet iyo waftiga hogaaminayo ku soo dhowaada Boorame gaar ahaan Jaamacadda Amuud. Farxad weyn bay ii tahay in aan idinku soo dhoweyno Boorame gaar ahaan Jaamacadda Amuud walaalahayaga qiimaha leh oo soo dhowaada. Waxa aad timaadeen meel idinka jecel yahay waxaana u timaadeen walaalihiin. Aniga oo ka gudoomiye ahaan waxaan ka mid ahay ardaydii aad soo barbaariseen waxna soo barteen gaar ahaan digtooraada jaamacadda weyn ee Uludağ University ee ku taal magaalada Bursa. Waanu ku faraxsanahay imaatinkiina wax badanna waynu wada qabsan karnaa mustaqbalka haddii Ilaahay waqtigii aan wax ka baranaynay dalka Turkiga si fiican ayay dawladda Turkiga ee uu madaxda ka yahay His Excellency Mudane Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan noo haysay waana ku mahadsan tahay iyada iyo dadkeeda wanaagsaniba. Halkani waa dalkiinii labaad ee soo dhowaada. Maanta waa maalin kale oo taariikhi ah maadaama aad nagu sharafteen qadadan waxaanay muujinaysaa jacaylka aad u haysaan walaalihiin annaguna waanu idin jecel lahay sidoo kale waad mahadsantihiin.